النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى هب النسيم تغنجا ودلالا عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى يا مركز الأخيار هاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريض على اليراع فأمطرا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا كلن كان ينكرد وكلن بركيسا ألنا سبحانه وتعالى نحريستي سكسو دجيو وحن إلهي سبحانه وتعالى كبريا إنه عربكي قلبي وخصوة كلمة حقه ألنا سبحانه وتعالى ونقضي وقوة هذا الكدق يستكيس ونأكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. intaa kadib walaalayaal waxaan ku jirnay oo shalay bilownay muxaadaradan saddexda qaybood aan u qaybinay. qaybtii koowaad oo xalay waxaynu kaga hadalnay qawaacid asaasiya ama tiirar iyo asaas muhiim ah oo loo baahan yahay la fahmo arrinta ku saabsan tarbiyada ilmaha iyo barbaarintooda barbaarin wanaagsan oo islaami ah. محاضرة لبعض وحين كجاه لنا إن شاء الله تعالى أسبابها كنا انحرافك قلوعة يمالها دباتوين كجيران تربية خاصة قربها أين جوجنو إيوه عقباتك هرتاجن تربية صحيحة تربية والأحسن وحيالها هرتاجن waxaan u kala qaadi doonaa in sha allahu tacaala marka hore inaan ka hadlo bal qodobo ra'iisiya oo aan isleeyahay marka aan u fiirino mushkiladeena asaasiga ah qaybaha ay ka jirto iyo caqabaadkaasu dhinacyada ay ka jiraan qusuurka ama gaabiska meelaha uu ka jiro mujtamaceena ama bulshadeena muslimka ah guud ahaan gaar ahaana soomaalida kadibna markaan usii fiirino bulshada soomaaliyeeda qurbaha weliba galbeedka wadamada ah yurub iyo maraykan iyo wadamada la mid ah joogta. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu inoogu dhameeyey walaalayaal sida xalayba aynu qawaacidda ku sheegnay in alla subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamay noogagana sheekeeyey suuradihii xalay aynu akhrinay tarbiyada wanaagsan asaaskeeda iyo gundhigeeda. waxaynuna sheegnay qawaaciddii asaasiga ahayd oo iimaanka, labada waalid, cibaadadooda, alla barigooda الله سبحانه وتعالى يبريان ذرية صالحة إنه إلهي سبحانه وتعالى أوصيه ذرية داسنا إلهي سبحانه وتعالى أبريان إنه إلهي سبحانه وتعالى هجاجيه وتوسيه وحيالها كلاتو وحينو كتل معني بأن أباره نقشة والدين لبدا والدكو إنه باره أيهاي ilmaha waalidkiis inay raad iyo saameyn ku leedahay isaga ilmihiisu inay wanaagsanaadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu islaaxiyo
waxyaalaha kale oo sheegnay waxa kamid aha oo asaaska gundhiga u ah tarbiyada waxyaalaha diintuna inoo tilmaantay kamid ah oo asaaska ah xalaasha iyo cunideeda xalaal quudashada oo meeshii haddii xataa asbaabo badan lala yimaado haddii xalaashii wax ku jiraan oo waxyaala xaaraana ay meeshii soo galaan quudka reerka in ay saameyn aan fiicnayn ku yeelanayso tarbiyada ilmaha iyo wanaagooda adduunka iyo aakhiraba waxaan kale oo sheegnay xalay si guud ahaaneed takaamulka ka dhaxeeya iskaashiga guriga iyo macalinka iyo bulshada saddexda qayboodba in ay ilmahaas tarbiyadiisa ka qayb qaadanayaan marka iskaashigaasna in la helo inay tahay arrin daruuri ah iyadana waynu tilmaanay waxaynu kaloo tilmaanay labada waalid iyo isfahamkooda iyo wada tashigooda had iyo jeer iyo itifaaqooda iyo muwaafaqadoodu inay iyaduna qayb weyn ka tahay tarbiyada ilmaha ilmo wanaagsan inay noqdaan sidoo kalena gurigu inuu yahay guri kalgacal iyo jacayl iyo nabadgelyo ay taalo inuu yahay sidoo kaleeto labada waalid inay mas-uuliyadda kala qaybsadaan oo qorshaha ilmaha tarbiyadiisa ay ku heshiiyaan oo aabuhu masalan shaqadii iyo dibaddii inta badan u badan yahay hooyaduna gurigii iyo ilmihii amagaasimkooda ay u badan tahay inahaas waa yani si guud ahaaneed xalay qodobadiinu uga hadalnay oo aynu ku tilmaanay inay asaas u tahay tarbiyada saxiixa ah waayahay caqabaadka iyo mushkiladaha ina haysta maxaa ka mid ah 5 qodob ayaan kusoo ururinayaa 5taa qodobna mid walba waxaa kasii farcamaya waxyaalo badan oo ku hoos jira taasoo sabab u ah ilmahaas iyo jiilka cusub ama faca cusub ee qurbaha ku koraya sida xaalkiisu noqdo inta badan waxaan ognahay inkasta oo ihsaa'iyaad ama statistics dhammaystiran oo daqiiq ah oo aad iyo aad u tiftiran aynaan ka hayn haddana waxa aynu haynaa ilmaha Soomaaliyeed ama ha noqoto Yurub ama ha noqoto Mareykanka dhibaatooyin weyn inay faca cusub ay soo food saartay taasoo ah ilmuhu inta uu yar yahay gacantu ku jira gacanta lagu hayaa laakiin ilmihii wadankan iyagoo yar yimi ama ku dhashay muddada aynu hadda qurbaha ku jirnana ay tahay 20 sano muddo kor dhaafaysa intii sida aadka ah ee xad dhaafka ah loo soo galay qurbaha in aynu ka arkayno dhibaatooyin taasoo ah kow xaggii tacliinta oo yani ضعfi uu kaga dhacay waxbarashada oo ilmo badan iskuuladii ay ka tageen ama u gooyeen khaasatan markay gaaraan heerka dugsiyada sare aqoontii diiniga ahayd oo yar oo iyadana aan la helayn dhibaatooyin la xiriira xagga dhaqanka oo yani meelo badan dhaqankii uu lumay oo dhibaatooyin ay ka gaartay ilaa ay soo baxaan ilmo yani suuqa ku luma oo ama waxyaalo aan fiicnayn oo daraag iyo maxaan ku sheegaa jariimada iyo gaangiga iyo waxyaalaha la mid ah ay ilmaheeni qaar ku dhacaan qaar kalena inay noqdaan mujtamaca mustawe hooseeya bulshadaas ay soo galeen oo ay yimaadeen inay noqdaan bulshooyinka ugu hooseeya inay noqdaan oo haddiiba ay soo madaxa soo qaadaan ay u badan yihiin maaskoodu inuu noqdo dad isaga ah yani hadduu xoogsato iska noqdo yar
ama aan lahayn shaqo iyo xirfad ama aan lahayn tacliin sare oo maaragtay heerkii tacliinta heerarkii ugu sarreeyay ay ka gaaraan arrinkaasuna inaanu dhicin oo dhibaatooyin lagala kulmay marka dhibaatooyin saas oo badan inay soo food saartay iska dhaaf masalan luqadii oo dhuntay identity oo maqan oo meesha ka maqan wax badan baarinimadii iyo aqoontii waalidka iyo qaraabada iyo ehelada iyo wax la xiriira oo iyaduna dhaqamadaasuna ay lumeen iyadu xadis wala xaraj wax arrin laga hadlayo hadda maba ahaba oo waxa weeye waxay noqotay arrin daahir ah oo muuqda oo meel walba aynu ku arkayno guri iyo xaafad iyo jid intaba mushkulooyinka marka dhibaatooyinkaas dhacay natiijadooda waxay natiijo waxay u yihiin oo ay ka dhasheen dhibaatooyin aan anigu hadda kusoo ururiyey 5 qodob aan kusoo ururiyey qodobka koowaad waxa weeye mushkilada qurbaha iyo isbedelka inagu dhacay inaga oo bulshadeennii iyo dhulkeennii ka soo barakacnay dhul kale iyo dhulal kale oo aynaan u diyaar garoobin wax laynoo ku diyaariyana ayan jirin sahan iyo qorshe aynu ku nimidna aanu jirin nin walba meeshii yacni maaragtay ku soo celisa habqan ah aynu ku nimi waa mushkilada koowaad waayo ummad aan lahayn wax ururinaya wax qorshe ah oo nidaaminaya wax tacliinteeda iyo ubadkeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda iyo afkeeda iyo taariikhdeeda ka fikirayo qorshe u dhigay aanu jirin laa shaka dhibaatooyinka aan soo sheegnay iyo ka badanba inay waajahayaan waxaan isleeyahay weliba waa sidaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo naxariistay wax badanna alle subxaanahu wa tacaala noo nabadgeliyey dadaalada dadka wanaagsani ay sameeyeenna wax badan ilaahay sabab inooga dhigay in wax badani inoo badbaadaan laakiin natiijadu waxayba ahaan kartay inaan waxba naga harin oo aan dhibirno oo aynaanba muuqan meel aan jaan iyo cirib dhignay la waayo oo aan tirtirano saasayba qorshuhu ama yacni waaqicu uba ahaan karay marka loo fiiriyo ummadan oo soo qaxday oo dhul aanay luqadiisii aqoon dhaqankiisii aqoon la diin ahayn wax qorsho ah oo u yaalla ilmaha ay dhalayso iyo meeshay ku korayaan iyo qaabkay u korayaanna wax qorsho ah iyo wax takhdiid ah oo ka dambeeya aanu jirin inay saan usoo noolaato ayaaba mucjiso ah baan isleeyahay marka taasu waxay ka mid tahay dadku waxyaalaha ay ku tilmaamaan yacni dadka wax ka qora hadda oo marka ay mushkilaadkan baarayaan ama cultural shock ha ku magacaabaan ama maaragtay mushkilaadkan integrationka ha ku magacaabaan ama transformation waxa ay dhahaan isbedelkii mujtamaca ku yimi oo maaragtay isbedelay 15 sano 20 sano u dambeysay lagu magacaabo waxaad ku soo ururin kartaa iskeeda mushkilo u ah ummadan intay soo qaxdo iyadoon wax qorshe oo ka horeeya jirin habqan ah dhulka ku soo yahay marka taa waxaad garan kartaa maantadan hadda yacni waxa weeye dalkan hadda aynu joogno control state way ilaa iyo Hawaii ilaa iyo Alaska ilaa iyo waxa lagala soo hadlayaa meela aydinaan xataa islahayn dad baa jooga Soomaaliya baa jooga aydinaan islahayn ma ujeedaa oo laga yaabo qaarkood xataa wax sheeganaya diin iyo masaajid iyo muxaadaraad iyo dugsi iyo midna aanay arag marka waa qorshaha kaan tilmaamaya kaas ummad habqana oo iska soo dhacday oo dhul timi wax qorshe ah oo ka horeeya aanu jirin taas oo mushkilada horta weyn
oo ra'iisiga ah ina haysata halka waxaad ka garan kartaa walaalayaal oo halka idinka muuqanaya marka culimadu ay ka hadlaan war mushkilooyinka ummadan Soomaaliyeed haysata mushkilooyinka ugu waaweyn waxa kamid ah oo asaas ah ummadan dhulkeeda inay ka barakacdo ummad muslima dhulkay deganeed ha ku gaajaysnaato dhibaataha ku haysato waa inay amni ku haysato oo cala aqal nabadgeliyo ay ku hesho oo diinteedii ay ugu badbaato laakiin barakac inay ummadaas dhulkeeda ka barakacdo oo dhulkeedu uu degi kari waayo nasan waayo mushkilada ugu weyn wajahayso ummadan mushkilada ugu weyn ee ummadan haysata weeye waana waxa ay hadiye jeer culimadu ummadda ay u ishaarayaan ay u sheegayaan war ummadan dhulkeeda in laga barakiciyaa waa mushkilo weyn waa isma weyn dadku ay ku fikiraan oo arrinka ciribtiisa eegaan meelo badan baan waxaan ka iri dad kasta oo ka qayb qaata ummadda muslimka dhulkeeda inay ka barakacdo iyagoon xataa ula jeedin oo ujeedadoodu saas ayan ahayn qayb bay ka qaadayaan mas'uuliyaddeeda taas waa qodobka labaad oo mushkiladan dhibaatada wadkeena ka qayb qaadanaya inxiraafkooda ama inay dhulkan ku daataan waxa weeye walaalayaal hoggaan la'aan fiican hoggaan la'aan ummaduhu waxyaalaha ay ku badbaadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigo inay guulaystaan waxa weeye hoggaan wanaagsan in ilaahay siiyo waxaynu akhrinayna taariikhdii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu nooga sheegayay reer bani israa'iil qisooyinkoodana cajaa'ib badan bay lahaayeen cibar badanna ku jirta suurat albaqara ilaahay wuxuu nooga sheekeeyey in ay ku yidhaahdeen mar ay jabeen oo dhulkoodii laga saaray oo ilmahoodii la dilay oo dhulkoodii la baabi'iyey ayay waxay ku leeyihiin nebiyadoodii ka mid ah mar walba nebiya ilaahay kasoo dhex saari jira loo waxyoodo إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله بقر إلهي نوغا بري إلهي نوصو صار إنه قاموي بقر النبي ويه استاني بقر بير روان إنه قامية أو دقالي قلية لأن دقال كي لفتقيس النظام بقباهي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا نحن دقالمون أنه دلك يجي حولها يجي وإن ركضوصا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالم مركي أرنكي أي ضلبانيين لبواجبيي دقالكي دبي وبفتين واتقين انتو دي بلنين وقال لهم نبيهم أرنكي أدلبني سين واكا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إلهي وحيدين صبحيي لين طالوت ليراهضو بقرة بل هذا فيرق اللوعة بقر سوميا دلبنين ها بقر بالا يدين صوصاري ننكاسا إلهي يدين صوصاري بقر يدين كدقين قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ننكي بني اعتراض كان البقر كأها وإلهي وصوتوري سيدابو بقر نوال يسوق نوال حيري كراوة أنك كحول بضا ننحول له ما بقى هبا يا سيبو نوال كرا بقر أنك كحق له قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
إلهي سبحانه وتعالى نكان وحو دورتي وكو إنو إلهي علمي سيي أقوم بولي إلهي علمي بوسيي waxa kan aad doonaysaan oo dagaalkan iyo guushan aad rabtaan iyo nolosha aad rabtaan cilmi bay u baahan tahay iyo awood iyo khibrad ninkan uu leeyahay ko xagga hoggaanka iyo imaamnimadana inuu hoggaamiyo boqor noqdo waa nin xagga quwadiisa iyo hoggaaminta iyo khibradana u leh bastatan fil ilmi wal jismi iyo jirkiisaba إلهي سبحانه وتعالى لبدي بوسيه حق حوجة إيه حق علمي قال لبضة بقى وأنا لبضة ضدك اللي وجودي بأمانة سيد أصبح إلهي سبحانه وتعالى مركا كجساري نكاس مركا بري أمان بوصاري خير بني إسرائيل أنتي صهرتي وحي جدك كهرين ويانا قصة وردات تاي ودكتهن سجى حتى مركي وضررين ودجال كيالي حتى كحبة كهريس فلما فصل طالوت بالجلود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وبقي قيب لنباك قهرتي وبقي مرقو قافي أيها هذا قيب كالعرطي قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قالوا لي كلا عدل وأنا نقول ما كل مكان نبي كوح كالعرطي إن إمس الشرب يسوق على وامتحان أنت يريد كوبناي إيمان كراهي يسقي سداسي هو ليستين مركا وحيارها دبعتها إنها يستا ومالها إلهي وحكومة بادية هجان بل هذا فيني مرة البلان وان إشاري سورة النمل صدح هجان بو إلهي كشكي هجان مسلمة هجان قالة هجان حيوان عيان صدح ذا وحا كلمية وحاوة وحاوة من والباسلة وهجانك أرنكسي قيادة الليدر شبكة وقدرين سيئة ويسحي القاضي ميدك هو النبي سليمان عليه السلام وملك وانا بقر وانا ملك وين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلهي وحسي جني إنسي حيوان يشمبره وحدا والله كل مية وحسوا ترسيهن فهم يوزعون قالوا والباء نظام بيوتاجنتها صفقة ليتاجنتها مركو آجي أيوح تبي هدهدك قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين بل هذا فيني وحسابتا شقو مركي جرتو وإن حسابتا جراح قفكي شقل لوني ببوسكي يسيبو كأركي واحد علماء المفسرين توعير على معوها هرجوغو وها هدود كان كوحبو هرجوغي بوسكي يسيبو أركي واحد وكما قياهي آوي هدود كيبو هدانو حجة الله إيمان ولا معاقبين يا نظام كاس هو نظام إداري و code of management والleadership قف كمل لو ديبو ومسؤول غدغو هدهدنا هذا شمبرنا هذا بوسكي سوى إنه تاجي هوشي سنو يسوع وصوبها هدي أنا نقولنا عقابته هذا وإنه متيستا أما وإن العزلة أما وإن ماشي لقى عيرية أما وإن شغله لقى قاضي لو عذبنه عذابا شديدا وأنا عقاب حرم بضن أو لا يأتيني بسلطان مبين أما حجة الله إمام حكومة غنا justification لا أقبلك كرهوكين يهديك فمكث غير بعيد ما بسيفه غاني فقال هدهد كيف أغيب أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بالنبأ يقين وربان كو لا وير هي دغ دغين هول بان كو مقنا هول علوس يسر علوس يحق دب بان كو ودا حاجات كودا يمن بان كودا يسبا او ما انت دوشي او يمن تكتي او هول كسقاط صنود نفي عم بابتاي كان حق ايه
وحجدي بلي بموت تقرير بوبه إني وجدت امرأة تملكهم وأن من بانصو أركيبوا يرهوين بابهم وضحى وياه فقردوه وبقف ضمارة علماء القاركود حين يهودوا تكيلا يامي وين بمضحك لكتن واي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عرش أدوين ويكفر لها حوق إن كستبوا ويهيستا ودعيدا يرق يهب يحوله وحوال بويهيستان بيه لكن محيكو قطال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله قرح بيقو سجودا ينبي ذات كساس يلي يقوم كذا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون هدهد كاوحك هذا الوناسان وخطبض وناسان ما أردت ولقي يا قرح بيقو سجودا ينبي وريا يلي يقوم كذا وقفتك وعاها يستوي ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض أمحا أدي لنا إلهي السجودان هو قياش محي إلهي السجود وينبر وهدهد موحدة والتوحيد كهذا مركا أوفيرسو نبي الله سليمان قايد وحي وخبصنا إياه وحي ربائنه وتقرير كلا كاني إن هدنا علم اليقين لغرسه ورقد بودي بي وأدري قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم أركي وحكه المريء قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وركعات كان طيب وانا هو بصنعنا إن أدرون شيء سينا بين شيء ننك مسؤول كان أساسا لقربها محب صدار لقربها ما هينو حسك قربها يا أتباع لي سوحي وكانان بينو مارك اسكير على أوكي اذهب بكتابي هذا ورقد إذا قالت وأوكي فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون ولما كسو تجيني انت آذن كسو تجين بل هذا فيري ورقد إذا وحي كجي جوابيان يوحي أورانيان حصون نقون وراي كسو نقون بل فيري سيقابلان نظام كاس بل هذا فيري إداري ماشي كسعودة مامور كان ماشي كسعودة فيري هذا وضبع كم ساكينه يعني مسلمين تكملوا وكتاب كودي لقفوا بيه مركي كفوا عليه وحوغا مارت اللغة التلياني إيو فروش إيو لوصور ديجي بوحي انتسون على القرآن كيما هذا اللي يسكو حكومي كرا القرآن سبحان الله إمام الدون إمام الآخرة الله وضي بإلهي قدم يا ربي سبحانه وتعالى هذا القرآن ما دويديسو شفاء العي سؤال شيء داويسه أقول الله أنت ما دويديسو ترى هو القرآن كان موجود فيه مامل كسيدا وحلو ماملان قواعدي سمو كجرتها وحبينا هذا الكداري كاسوحها تصالح لبعض ومد قاله وبقرده ورقد أتمي إلهينا هو كشكي إيضا سيدا وحما مشي ربي سبحانه وتعالى ماشي قتل مامي وحا قتل مامينا وحا كمدا ولا تشد إيضا أنك إيهو بسشرة موجودة ورقد مركي أتمي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم هذا فيه إذبت حتى ورقد الله إيكاري ورقد آد ونكسن وقروح بضان أوفي عن بايتي ببيت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كاسو سليمان بوكيمي وأنا بقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا لبك المدد ورك وكوين هايو كبرينيني إذنكم مسلمين إما الله إنتانا إذن قدوا الإيمان وقدنا إنتا صفقر قالت يا أيها الملأ
waxay yiraahdaan culimada mufassiriintu waxay ururisay wadankeeda wixii wax garad ahaayo dhan culimada qaarkood waxay yiraahdaan 4,000 qof bay ururisay xoogaal culimo iyo odayaal iyo aqoon iyo dadkii lahaa ra'yi qaar waxay yiraahdaan 600 dadkaas oo dhan bay ururisay fiiri wada tash maxaa qadiyad weyn baa inala soo daristay waxaa la leeyahay dalkeeni in la qabsado oo laynagu soo duulo baaba soo socota qadiyad hal qof ka taliya maaha qadiyad hal qof u taala maaha qadiyad urur u taala maaha qadiyad nin xataa madaxa kaligiis u taala maaha waa qadiyad ummadeed wey aftuni fi amri bayt ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun wa shura shurawi arrin aan la go'aamin oo laga tashan qofka ku istibdaada kaligiis iska goosta waa marin habaabin meelna ma gaaro nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo rasuul ah oo loo waxyoodo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakkal cala allah amarka la mushaawarayso oo la tasho ummadaada iyo asxaabtaada la tasho dagaaladii uu gelayay oo dhan wuxuu ku gelayay talo maaha kaligiisu iska gelay talo ku gelayay ashiru calaya ayuha nnaas waa badar markuu gelay intaan dagaalka la gelin leeyahay tala keena ashiru calaya ayuha nnaas wardadow tala ii keena tala keena ansaar iyo muhaajiriin madaxdoodii buu leeyahay tala isii taasuna waxay ahayd reerkoodii meel wanaagsan bay ku furtay marka boqoradaas taladeedii iyo ra'yigeedii iyo caqligeedii iyo wax walba u dhiibay naxnu ulu quwatin wa ulu ba'sin shadiidin cid waa iska dhicin karnaa bayda cidina soo weerarta waa iska dhicin karnaa xoogna waa laan laakiin adigu waxaad go'aaminayso go'aanka go'aami la dagaal geli arrinka ma jiray tiri u kaaliya ina almuluka ida dakhaluu qaryatan afsaduuha وجعلوا أعزة أهلها أذلة نمن كان بقرضا يحوق واوين هدي دول صوت قران ويبابينا ينعكت مرنا يا بيت في الرقم كذا سيقول طالنيش وانا ذيك عبس القضاء ما هو مدى هنا الأول لو على وكحب ما تراهو ما هو يسكر دقسقي يوكل هاي كنتم تعطوا دون هذا ليس عقلا وليس قيادة معها leadership معها ومضوا تلنتد معها وجاهلت وقالوا هوانتان موجودة لكن ضدك هذا أي يقوم قيسا ومضى ذا قيسا الشعب كذا يقوم قيسا مرة طويلة وكباب ومن الله قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة تذكر مدح لها كرامة لها شرفت لها ببابين يا وهو القحوتي من يا محا جنرالة محا صفيرة محا ملحة محا نخترعة كل قحوتي يسرك هذا مساسة ربطها مساسة ومدى وقوت النساء مساسة ربطها ومدى شرفت لنا هل دور كذا وحكو أور كذا أهل الشرف كذا أهل العزة هذا يا تجهات هذا كلنا عير نقضان قعنت هو صلاة مساسة ربطها أذلة إن النقضان مركبين وكذلك يفعلون علماء قاركود عليهن وكذلك يفعلون تاس انتاسوا وهذا الكي إلهي وعلى سلاس الشريوي ساسي سميان تقرير واي تاسنا وحي أهيد هواني داسو والأكتهن وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون والامتحان النبي ترى كان هدويه نين دين حق أهوته كما هرتي كرنو هدويه هاي نين إسك باطل أو بقر باطل يا أو إسك دوري حدقول ناس كده علينا وأركنا مرات واختبارنا وتجابينا حول يهديه يدوم بمدراية مركب قصوا ودرت هذا مجنيه لكن وحيكون دماتي قوم كذي إني حق إسلام كأسه جامسه أين إسلام تو قوم كذينا إيساكو إسلامان النبي سليمان إيران
قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الكلام هلكاس كل ما قوم كذين هلكاس هو قامس قائد كون أكثر مركا أمضيسا هلكاس هو قامية مال ونكسم بكفرة أصحمية إن متك صدحاله اسم سورة كجرة والله يا ريسا وحويه وقرآن سورة دردن بيدكم عابن تهيبا سورة دردن با وحيكم عابن تهيب قرآن جلاس سورة النمل باريا سورة النمل هل آيات أو سورة كتبي أيام الله مقعدرين فلما أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قرآن جلاسو كليجد ويباس حلقاتي وحال البور يربي فو شيء ملبي فو شيء وحيود جيسا قرآن جلي ماشي توريس يا ماشي كنوري وروحا يدين صوت هريري أو يدين دول يمي وحا يدين نام عرب ومقال وليه عيلان كي سليمان أو إنس له أو جن له أو شمبر له أو أدونك بوحيي بقى صومري مساكين يرباته لا يدين ما أركيه وهذا الله ينفط منا يعكت على يد المرنية يين نام بابينه ورقيه نجلا بلدك نجلا بلدك نجلا الله يامن نملدن والليدر هو قائد وي نملدن ما حدا قائدكو قفك قائدك قفك هجاميها أو أمديس حطرا وقفك أمديس يضدكيسا أخذ ما يهو بدبادية ويه وملورك أهرس هذا ويه وكان أدقى ويه وعمرك يقول يرتهير الدقنينتي أي بحيصي قرآن شذو ما كان يقول يرتهي وبحيو وحكوبة بإننا ما يشاف إنه يراحظه ويه وعلبوه ما يشاف حكوه بإننا كبر بريننا نفسنا كبد بادية بس حل قانت ويسحل قانتي قرآن شلاص قوم كيدين ويبد باديس إلى أكبص الله النبي قاس إلهي سبحانه وتعالى أوبري لقضى يعني وحوالبه لقضى إلهي بري هذا الكاذب مقلي إلهي بري إلهي بونه وحمد إنه إلهي بري وحكدر إذب تيدا يعني احترام كذا وحيتري وهم لا يشعرون مركز سليمان يهدي حتى إذن بربريان ولكع معها لأنه النبي وهي سليمان عليه السلام مركز إذن ظلمية مرة بقى وان بالله إذن أركان لا إذن ما أركان إذن كل إذن شدين بالله إذن بطمان مركز إساقين ويعذر ذاتي ضدك هذين ويؤدكتي هذا الوناكسنا ويكجيلسي مركب قيادة لأنا وحي نقول عيوي مركب قربيه النمي بلا قيادة لنا بلا قيادة no leadership وهاو أضياش وهاوي وحقرتك وهاوي علمك وهاوي أقوياك حقي آلين ومضوضة بابا إيسا دول كذي كسو بركة علي ميل آن سهن سن هوري أوغين يلا إيو المهد إيو اسجيدنا إياه ونوال باتضوء إيو شان إيو طبان إيو جيدا إيو سودول علي آوي داد كذي انتا صدمي إلهي انتو نحرستم موياني وحيكو مشغول سيهين على دين شاب dadkaas qiyaadada noqon lahaa
ama hoggaanka wanaagsan noqon lahayo ummaddaas soo barakacday oo jiilkeedii soo kacayay uu sidaas u soo kacayo mushkilooyinka badanoo uu yeeshayna aynu sheegnay ya waxay halkan markay yimaadeen oo ay guri heleen oo mid walba gaari helay caloosha wuxuu geliyana uu helay intii ilaahay u naxariisto mooyaane inta kale waxay ku mashquushay mushkilooyinkeedu hore oo soo barakiciyey inay falanqeeyaan oo ay u fariistaan oo u jeestaan mushkilooyinkii qabiilka qabyaaladda reer hebel iyo reer hebel jabhad hebel iyo jabhad hebel urur hebel iyo urur hebel ya in lagu mashquulo ururadaas sidii loo dhisi lahaa sidii loo xoojin lahaa jabhadaha sidii loo xoojin lahaa sidii xoolo loo siin lahaa sidii maaragtay dagaaladii loo sii wadi lahaa sidii reer hebel laysaga dhicin lahaa sidii reer hebel loogu duuli lahaa iyo haluma jarad halkaasay la martay intuu ilaahay u naxariisto mooyaane halkaasay la martay waxay kaloo la martay dhalinyaradii khusuumaad iyo isqabqabsi marka qurbihii la yimi aye annagu aan isku jeesan kor maba eegaynaba kor maba eegaynaba waxaa la yidhaahdaa dadka qiyaadaadka ahi kor bay fiiriyaan ufuqay fiiriyaan vision bay leeyihin aragti dheer bay leeyihiin maya annagaa isu muuqana hebel baa ii muuqda hebel baan arkaa hebel saan isaga dhicin lahaa saan isaga meel isula mari lahay ayaa yani maalo loo lahay masaajidadii baa laysu keeni kari lahay waxaa laysu keeni kari la'yahay wadaadadii kuwii diinta yaqaanay waxay ku leeyihiin diintaa waxay nafaraysaa inaanu toban firqo noqono nina aanu nin la hadlay diintaa nafaraysa saasay ku leeyihiin waana waxba kama jiraan diintu ma farto waxaas dadkii qiyaadada noqon lahaa wada hadal ma leh ummad masiir ka dhaxeeyo wada tashi ma leh qaar kale waxay iskaga mashquulsan yihiin bal shilin ku raadso mujtamacan shilin ku doono magaalooyinka waaweyn waxaa ka furan kumayaal iyo boqolaal community reer hebel jilib hebel kada hebel ush hebel ya sidii jabhadihii oo kale isdhala baa fershan cusub markii dibadaha la yimina lagu sameeyey wamaa adraaka london iyo minneapolis iyo columbus iyo meelaha la mida magaalooyinka waaweyn oo qurbaha la joogo bal midkiin ha ku qaato research PhD ha ku qaato bal inuu soo tiriyo bal communitiyada Soomaalida iyo inta cadadkoodu yahay iyo jilib walba iyo reer walba inta community u leeyahay iyo waxa ummadan ay taraan iyo waxay qabtaan qiyada la'aana waa mushkilada labaad baan isleeyahay oo ummadan wax isxilqaama way ku yaraadeen wax ummadda isu hortaaga way ku yaraatay oo qaada qodobka saddexaad oo inxiraafka ama qaloocaas carruurta iyo jiilka cusub mas'uulka waa labada waalidiintii oo mas'uuliyadoodii iyaguna in badan gabay garanna waayey meeshanu ay yimaadeen oo ay soo degeen inay ka duwan tahay meeshay joogi jireen oo wax ku dhaleen ama ku soo koreen inay ka duwan tahay way garan kari waayeen kuma baraarugin transformationkii aan soo sheegnay iyo cultural shockii aan soo sheegnay kumay baraarugin mas-uuliyadoodii marka waalidiintii in badan way gabeen oo maxay ku gabeen waxay ku gabeen in badan daraahim iyo dirham iyo diinaar in la eegto ilmihii iyo mas-uuliyaddiisii inaan la ilaawo waxay ku gabeen tacliimtii iyo tarbiyadii diiniga ahayd ee ilmaha muslimka ay u baahnaa hadday guriga tahay iyo hadday iskuulkii tahay intaba taasna way ku daciifeen
ووالدينتي إن بدن مية تقدير ما شادينا مية كدوني waxay kala ku gabeen inay hawshii la fududaato oo odagii iyo habartii wax isku qabtaaba reerku kala firdho oo furinkii bato oo usrada burburkeedu u bato ciyaalkiina meeshaas ay ku lumaan waalidiintii waxay mas'uuliyad iyana ku gabeen ilmaha waqtigoodii la siin lahaa inay waayaan dhul cusub ay joogaan si taftiiraan uga hadli doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaan tilmaamayaa qodobka saddexaad inuu yahay xagga waalidiinta oo iyaguna dayaca ilmahaas ku dhacay iyo inxiraafku meeluhu ka yimi qayb weyn ka qaatay qodobka afraad oo qaybta ka qaatay waxa weeye ضعفiga iyo gaabiska mustawaha tacliimiga ah ee madaarista qur'aanka iyo maraakista islaamiga iyadana ضعfi baa ka jira aan laakiin challengeska ka hor imanaya madrasada qur'aanka oo ku taala Columbus ama ku taala Minneapolis ama London maaha madrasadii qur'aanka oo ku olayd madrasadii qur'aanka ku olayd Muqdisho iyo Hargeysa iyo Kismaayo ku olayd maaha waa different ka duwan tahay total different qur'aanka bay wadaagaan bas baridis laakiin waxa kala dhan waa ku kala duwan yihiin taas waa qodob maraakista islaamiga ah masaajidu ma aha masaajidii ka dhisnayd Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boosaaso ma aha masjidka magaciisa ay wadaagaan iyo salaada laakiin waxa kala ku kala duwan totally different muhiimadooda shaqadooda hawshoodu waa kala duwan tahay totally different shaqa isku mid ma wax shaqa isku walaha saajidkii lagu tukan jiray oo laga tagi jiray Soomaaliya xataa Allah yacizakum ma lahayn xataa meelo lagu weysa qaato oo lagu mas'uulaysto xataa ma laha masaajid intooda badan iska la wax kale madaraso iyo activity iyo hawlo kale iyo iska wadaaf arrinka marka wax badan oo khayr ah bay qabteen nacam laakiin mas'uuliyadda meesha taala iyo hawsha meesha taala wax isu dhawaa kaafiye kala dheeri waa inaynu danaheena ka hadli karnaa nacam arrinkaasna dee macallimiinta iyo imaamiyada iyo shaqaalaha maraakista iyo masaajidda iyaguna يعني أرن كاس مركز البراروجين يسدوا والدين تانو براروجين إنه أيام تانو براروجين إنه موجودة لأن أيضا مركز أرن كضعف وكجرو كو وحويه ضعف المعلم ضعف المدرسة معلم كتاب برمله أخوان دير أخوفر المله عيال كان كل شيء ماشي يواقعا سؤال تعامله مله وأنا واقع حقيقي كهذا واي المهن عن شيء challenges كفران هي تحديات كفران قولي وكسو كعي صان شيء وهاول قب كجرو media كفران تاعي environment كدون كفران ياهي يا معلمين هي تعليم كلا كفران تاعي هدي معلم كي مركا سكول كأما دوكسي أما مسجد كان أنقله قف أن استيعابي كرين أرضي قاسو إنو يهي مد وحاس ولا من كفريين وقاب لولدق مقبا هنو قارو دينتا اللي جعلي يسيو هدانو هاي هاوشو اسراعي سامر وحاير أو تببركو كويري هاي معلمين تي قرآنك وإلي مسؤولين تا مساجد إيوه مدارستا وين الدريمان مسؤولية المهن كسارا ما هكذا المه واي ماذا يوسكتها واي ماذا قرآن يوحى الله برا حرفها ونسكتها كلها وخير بدن صح لكن المهن لحمة الموت وأديك كان مقية أما الشمبريو وسكول كل إجراء وأنا مستعب كويسة
وأنا مسكحة كويسة سيد أو compensation ugu samayn kartaa shantii beri ka maana psychology ahaan naf ahaan jeclaan ahaan iskuulka inuu jeclaa masjidka inuu jeclaa quraanka inuu jeclaa waxa ka muhiimsan wax badan xarfaha inaad u talqiiniso oo qiraa'ada kaliya u akhriso waxa ka muhiimsan wax badan inaad jeclaysiiso masaajidka inuu jeclaado u soo helo dugsiga inuu jeclaado oo uu u soo helo baa ka muhiimsan wax badan عبادة هي إسلام كي دينته إنه شعلا وأرم مهمة وين وهي مهمة تربية وهي وحكوا نجمعا أساليب تي تربية ذا المها إسلام كالله عليه سين لها activities كودي ومغيه وحكوا مساجدي يا مراكزتي أو يندور كأي كل يهين بلانك كمقا المها وحلو بطلقة مساجد بدنا هذا وين رسنا وينو حاجاتنا لكن المهي كودي يرى يكودي دحه يكودي صره بلان كودي برنامج كودي activities كودي camps كودي recreation كودي نظام كودي لو كسبلا ماشي اي جوغان بيئه اي جوغان لا حول جليسه ما لها خطط كاس waxaana laga yaabaa imaamiyo iyo إداريين بدن ومساجد جوجا إناني بكل فكرين أكون مهمة وأنا كان أقول ختمة يرشنتا قلب وأنا أقول لها هاي حلافك المهن يجيلك هذول الله إن بدن أي لونته بمسؤول كته وحوي ماله دول كقربها أين نمي ماله أين المها كتر بيين لهين سن دام سنة قرشي سن ملهين إلى هذا ملهين إلى هذا ملي كمان نعتشان حتى سمرينا ويدين حتى تاسوعة سكول ديني روضة ديني الروضة وحنا جدا كي تشيدا يعني مع ميرها لوحنا على الماء حنا نضربه كي تشيدا كن قارن إلى سكول كيسي إلى كولج كي إلى قاعد أرنكاس أردمان إيكيهين مراكزتا والدينتا leadershipka odayaasha iyo aqoonyahanka iyo qiyaadaadka intuba mas'uuliyadda ay qaybsanayaan iyo bulshada ay qaybsanayaan haw kala badnaato laakiin intuba ay qaybsanayaan wallahi ina qofna ka baxsanayn qof aqli ilaahay siiyo aqoon leh oo mujtamacan kamida ka baxsan maayo mas'uuliyaddeeda ka baxsan maayo qof oday ah oo ra'yi leh oo ahlu ra'yi ah ka baxsan maayo mas'uuliyaddeeda ka baxsan maayo waxa weeye inaynu yeelano ciyaalkan ay helaan caruurteennii iyo dadkeenu meeshaan keennay iskoolla inay helaan diintoodii luqadoodii taariikhdoodii kaljarkoodii ay ka heli karaan waxaana ilaahay mahadiisa in meelaha aad joogto lagu ogolyahay systemku waa ku ogolyahay qaanuunku waa ku ogolyahay dowladaha la joogta ama maxtuubta waa ku ogolyahay أديكم بلغا كريلاي أديكي بان تلا لهين أديكي بان إسوتك لهين أديكي بان بفكر كيدي بهين مركا ما وكو جفتو هدو والد كيه إيو هدو يهي كيني ولادك إيو هدو يهي كيني أقونت لها إيو أحبرتي كيني تاجرك كيني أضيقا أي رأيك هي منكم جفتو وروحا كانوا وحلو جرك لما دن بيننا هاي أو وحاسو المال أو قاركود لمن أو قاركود حبسية كجرام إيش الرجع حبسية تك بل يرى الصوماليين إن يتابعوا قبلا وحبسية كجرام مسلمين ترى هو ترى بلام كولومبوس مينيابوليس سان دييغو ميلوبر هو قبلا ما حاكي أنا صوته ما حاكي أنا أرضي أو دوكسي عن كوهينه oo dugsiyada ardaydu soo dhiganaysay barito inuu gaan yahay maxaa kale xagee ka timi isweydiin malamiya waxaan sheegayna tarbiya xumada waxaan sheegay qorshe la'aantii wey meeshii macallinkii masjidkii maamulkii odayaashii aqoonyahankii lama daraasaynayo mushkilada lama eegay nin walbana sida faray xaaladda waxbay maaha waa iska socdaa dantay maaha yaa yidhi dantay maaha هدينا نهلين مدارس
iyo laga soo bilaabo rawda ilaa iyo high school waa waajib diiniyaho sharciyo fard way maaha naafila maaha fi aragtidayda waajib haddii aynu samayno waajibku way naga dhacaya in ku filan haddaynu samayno haddaynu samayn weyno in ku filan dhammaanteen aasimiin baynu noqonay dhammaanteen saynu u dhannahay dembiga waynu qaadayna furuudda kifaa'iga ahina waa wada saas furuudda kifaa'iga ah ka soo qaada hal qof muslima baa magaaladan ku dhintay haddaan lagu tukan ka soo qaada haddaan lagu tukan muxuu noqonaa xukunkeena dadkeena Columbus degan muxuu noqonaa xukunkeena habeenkaa dhammaanteen dembi baynu la seexanay dhammaanteen saynu u dhannahay daniga lagu tukan ama qofkaa dhintay lagu tukan ama la aasi maxaa dhaca fardu kifaaya qayb muslimiinta ka mid ihi hadday samayso oo ku filan waajibkii muslimiinta intooda kale uu ka dhacaya haddii ay samayn waayaan waajibkii dembigii dhammaantood wada fuulaya waxa ka muhiimsan ilmaha dhimanaya oo aan iskuullada lahayn oo tacliinta islaamiga heli karin waajibkooda qoortuu nagaga xiran yahay halkaasuu noogu xiran yahay anigu waxaan qabaa inaynu dhammaanteen dembiga qaadayno haddaynaan arrinkan u kicin oo ka gelgelin walaalayaal shantaas caqabadood aniga waxay ila tahay inay caqabada taagan tahay oo wax kastoo aynu ka hadlayno tarbiyada ilmaha inay iska noqonayso min naafilati alqowl ama hadal un waajib iska ridid ah ee aan camal lahayn haddaynan arrimahan wax iska bedelin waa koow waxa weeye qiyaadada iyo hoggaanka ummaddan waa inay mas-uuliyaddooda ogaadaan dadna waa inay ka soo baxaan hoggaanna waa inuu ka soo baxaa dad waa inay ka soo baxaan waxa kan ka damqanaya qodobka labaad waalidiinta iyo mas-uuliyaddooda inay gartaan oo meeshanu inaanay ahayn meeshay joogi jireen ama iyagu kusoo dhasheen ama bay-addanu inaanay ahayn bay-ad la mid ah ilmahanu ay lumayaan haddii aanay juhdi iyo dadaal weyn aanay waalidiintu iyo xil weyn isa saarin arrinka kaleetona waxa weeye madaarista iyo masaajidda iyo macallimiinta iyo maamulada iyo ducaadda iyo culimada haddaanay iyaguna maraakistaas hawshooda ayan isxilqaamin oo ogaan meeshan in hawl weyni u taalo iyadana waxa weeye gaabis baa halkaa ka jiraya oo dacfiya arrinka shanaadna waxa weeye haddaynaan madaaris iskuullo haddaynaan samayn hawshan sida wax looga qabtaa way adkaanaysaa aad bay u adkaanaysaa halis bayna tahay waxaynuna hadda yacni maraynaa marxalo khatar ah waa hadda intii meeshaan magaaladan la soo degay oo kaleeto 20 sano weeye yaa 90yadii baa lagu soo bilowday bilowgeedii ma ujeedaa marka waa halis haddii aan milaa maanta aynan ku fikirayn iskuulla waaweyn oo islaamiya inaynu yeelano islamic schools hadaynan ku fikirayn marka initiative-kaas waa inaan bilownaa hadalkuna waa inuu dhammaadaa baabka albaabka ayaan furaynaa idaarada ibnu taymiya inay initiative-ka qaado insha allahu tacaala magaalo kastana maraakisteedu ay hormood ka noqoto in la helo iskuul islaamiya sida ugu dhaqsi badan in la helo oo carruurteenna in badan oo kumayaal ah qaadi kara waynanu awoodi karnaa insha allahu tacaala arrinkaasna baabkiisu uu furan yahay dadka isticdaadka u haya hayse soo sajilaan oo ha iskeenaan oo xafiiska iska soo qoraan diyaar leeyihiin kadibna way isu imaanaynaa waa tashanayna intaa haddaan ka soo baxo waxaan wax yar ku lifaaqayaa hoos inaan wax yar usii daadego asbaabaha ugu waaweyn oo xagga waalidiinta iyo maaragtay mujtamaca khaasatan haba ugu weynaato dhinaca waalidiinta maadaama iyagu yihiin dee asaaska iyo mas-uulka koowaad ilmahaas dhowr sababood baan ka tilmaamayaa asbaabaha ugu waaweyn oo waalidiinta ka hoos baxaa ama dhinacooda ka yimaada oo ilmahaasu ay la qalloocdaan ama tarbiyadooda ay la xumaato qodobka koowaad waxaa weeye ihmaalka ka dhaca xagga tarbiyada intay ilmuhu yar yihiin yacni tarbiyada qaabkeedii inay xumaato اسلوبkeedii u xumaado tarbiyadii wanaagsanayd oo islaamka ahayd aanu raacin waalidku ama waalidiintu ay qusuur ku sameeyaan iyo gaabs
أرجع وحكمنا يعني أنت يريهين دين تين لجوب بيره إيمان كلجوب بيره ليش عليه سيو وحكمنا نحريست هذا والدين إلهي سبحانه وتعالى نحريسته وكبره لكن وحاجة تذكر هذي بدو إسكيهين إنا نحريسته قلبي وضع قوية هاي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد نكي يركو يتون ويلباليه أنا نتكمل ولي وحوى النبي عليه الصلاة والسلام نحريسته دي لها قلبي كقاضي ما أنا نكوه لي كلام يا مركا إن المها مركا نحريسته كمله وحكمله يعني إن أنت ويريهاي أنا أعباه لصعون صلاة مساجدك تجتانك إن أنت تقولي كل بلاد وكل صعوده وهذه الجر المهجة اللي شرته والله صعوده وكل صعوده ها خاصة مويش قبله هنا هو يلا تساسوك ها وأنا أهين يعني ما ركتي مركي أي لفريستان ذاتك وين إدهان كعمل شو تك ألقى الصوت أرهب مايا اللصعده تربية وناس كل صعده إيش هذا تكو هيسو أديك ونقول قف وحرام أنا مالك الكائن تربية ده صهرة يعني إيران حق شعائلك الله قيبيه وحول بودونا ينا آلن سين وحول بنا آلن كمنعين إيران المهك هلا يعني كلا فضلين إيران الاحتقارين المه أو آلن سحنو عنان أو يعني دتك هرطودا آلن كجيسي أما آلن مارتي هذا الله عن كلهن يوحيالها لمدة تربية مركا أو مركا هربا لها الليو لنعيا ذاس قيبه كقالتا المها يعني إني قلوا على وحكى له كملا حيالها الله عسك قيب قادنا يولا ليا المها إن تربية مركا لسينيو دنا والبا إني نقطه حق عاطفة هي حق يعني جعيل هي حق تعليمته هي حق التربية انت ما إني من مارت يسود اللي ترانتها هاي هداني نقون دباتها كإيمانيسا دباتو أياك إيمانيس وحيالها كلو كقيب قاتا انحراف وحكمنا مرنك جوكتدا أو لبضا والد كبحنا مرنك جوكتدا هذه لبدا والد هذه جرء مرميان المقولي مركو يمان مركو صوقل مركو أركو لبدي والد إسحاقه الماء وحكون بيرمية لباتوي نفسية وحكون بيرمية حق تعليم حتى إنه هو قابيه إنه مهسناله إنه صاحب مشكلة نقضه هذا هو اللي لباتوي كاسينه أصحاب كلا يضاد كلا ينتو الشيكته أو ما ركتي ملك المرة مركا والدين تا وإنه يوحي بحضاضة المهاني وقام وين قولك صدحات وحوي فرينك وقيب وين كقاطع المها إيوه ومتان كود هذا عي الموعود باهي هي سد طبيعي إنه قرأ أبيه هو يقول حيه لبض بكل قاع الكودي يسكال ميستان سدي المهاس لكن بعضنا هذا فرينك وحكينا أما أردلا خاصة المجتمع إنك هذا سد كل بديه مشكلة أنا أرجني المه وحويان أضاقي بالرعيان أما قبل لي بيصير بدن هو يدي كل جد بي المه راعيان هو يدي كل جد مركز راعان هو يلا وحا انت بدن كيف كريسه الماء المصروف لو هيري كرتا غورينا لو هيري كرتا والله يعني حتى هادو تبع اما عاد اسخلافتان اما عاد اسفرتان موجوده كيف كريسه استقوم بجوكتا وحد جوكتا لندن وحد جوكتا نيابوليس وحد جوكتا غورينا ولا وسيله حنقول شغاي انا يكون ولا وسيله خلاص شغلان نكان مركا ماشي دورا كبه هذا اسقطان انا وزان هذا انا يريد راف مركا فرين كاسو ما في ريان والدينته بدنا ما في ريان عواقبته ku yeelan karo ilmaha عواقبته ku yeelan taasuna dhibaato badan bay keentaa oo waxa inagu badiyay dhulkaana qurbahana ugu badatay yani hooyo kaligeed ama aabe kaligeed waxa kale oo kamida saaxiibada حن أو أنفعني كواس أو جدك
meelaha Soomaalidu degan tahay oo isaga badan geeyta isaga badan oo dhul maaragtay low class dadkeedu ay yihiin dad aad u hooseeya iyo bulshooyin aad u hooseeya in soo dhaxgalnay marka weeshan inay ku aqalidaan oo saaxiib la noqdaan oo surweel dabada ka tuuran iyo timo dhoora iyo maxaan ku sheegay dhigal durto iyo waxaas u moodo inay tahay waxa maaragtay ilbaxnimada ay maanta la sameeyay ugu wanaagsan inay tahay saaxiibtinimada saas inay tahay ama haddaanu bi'ada agtiisa ka heli wuxuu ka helayaa iskuulkii ayuu maaragtay ka helayaa marka asxaab aan fiicnayn asxaabta aan fiicnayn waxyaalaha ugu waaweyn oo ilmuhu la lumaan bay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaalahaas inxiraafka keenaya dhibaatada firaaqa badan iyo shaqo la'aanta firaaq badan iyo shaqo la'aan hadduu soo kaco teenage noqdana hawl aanu hayn wax hawl ah ma laha tacliinta waxaa laga yaabaa inuu ka tegey iskoolkii inuu ka mardabaalay khalaas shaqo u hayo kala tana ma laha iska jooga marka tv-ga habeenkii oo dhan daawo subaxdiina iska soo kaca ma ujeedaa hadhowna xoolaha yar oo cuntaha waad helaysaa habartuna maaragtay waxbay samaynaysaa haddii kalena bannaankaad hadhow bixisaayo meelahaasaad iska warwareegaysaa arrinkaasu bitaalada yaa iyo firaaqa badan wuxuu keenay dhibaatooyin aad u waaweyn ayuu keenaa waxyaalaha ilmaheenna firaaq ay ka qaatayna qayb badan ka qaatay bay ka mid tahay waqtigooda aan lagu buuxin daacadii ilaahay iyo waxyaalo wanaagsan iyo tarbiyo iyo wax u tara inaan lagu buuxin waxaa ka mid ah qudwada xun oo labada waalid iyo madrasada iskuulka iyo saaxiibtooda intaba noqon karta qudwa xun role model dad ka dhigto oo macallimiintiisa ay noqdaan macallimiin aan fiicnayn waalidiintii aan waalidiin aan hawshoodii ka soo bixi ahayn oo gurigii iyagu munkaraad keenaya oo waxyaalihii xumaa gurigii ay yaaliin oodagii habartii ay maaragtay wataan ku camal falayaan dembiyadii ay samaynayaan su'aalihii ka tegayaan waajibaadkii ka tegayaan munkaraadna samaynayaan see u doonaysaa marka xaaladaas inay arrinkaas u fiicnaado arrinka kaleeto waxaa weeye isdadaal fitnada iyo iqraaga dhulkan aan joogno oo fudud fitnadaas maxaa ka mid filimada heesaha internetka social networks telefoonada ilaa aynu arkayno cunug yar qolkiisa waxaa isaga dhigan tv waxaa u yaala laptop ama tv internet ba u yahay haye habartu waxay isleed qodobu isleey wiilku waxaa u keenay computer haye computer aan u keenay computerka aaw computerka halkaas ku yaalaayo homework ku samaystaa markuu ugu jiraa laptopkiisu wataa haye oo hadda laptopka laga soo tegay laptopka kanaaba laptop noqona waa kana haye cunug yar oo 7 jir 8 jir 9 jir waxaa arkaysaa smartphone-kii u dambeeyay buu wataa smartphone muxuu ku samaynayaa cunuga smartphone yarka oo hadda dhashay ma business buu leeyahay ma adduun buu leeyahay ma telecommunications buu leeyahay muxuu yahay smartphone ku sameeyay ma hadda carruurta dhan waa loo gadaa isaguna waa inuu gataa hebelna waa gataa hebelna waa loo gataa halkan waxa uu ugu jira internetka free wifi qolkiisu wax uu doono ku daawanaya waxaasuu halkaas aawada waday wujub haye Facebook maxaan ku sheegay Twitter maxaan ku sheegay iyo wax la mid ah halkaas ma sawirada geli halka ka soo saar waxaa kaloo ka daran hadduu yar yahayna wuxuu soo mari kartoon grandizer iyo maxaa kuwii kala taysha badalada yani supermanka maaragtay waxaasaa u abdaal ah kuwaasa geesiyaal u ah kuwaasaa maaragtay geesiyaasha maaragtay uu lagu daydo oo maskaxdiisa ay kusoo kortay ah ma garad abubakar loogama soo sheekayn cumar loogama soo sheekayn khaalid loogama soo sheekayn sacad loogama soo sheekayn 10 mubashiriin biljanna abdaalnimadoodii iyo batalnimadoodii ma uu soo qaadan ma ujeeda kuwa kala abdaal u ah kuwa kala geesiyaal u ah kuwa kala maaragtay halkaas uu ka akhristaa oo halka ka fiiriya arrinkaasuna waxa weeye waxyaalaha ugu badan oo lumiyay ilmihiiba ka mid ah control la'aan macnaheedu ma aha inaan ilmihii yani internetka aanay access u yeelan waa joognaa dhul baan joognaa internetka inaan access u yeesho wey computer inuu access u yeesho wey laakiin bilaa ifraad walaa tafriid yaa waalidiin bilaa ifraad walaa tafriid waa inaan maaragtay albaabkana si kulli la wada furin lana wada xirin maaha in la wada xiro wax oo dhan in la wada furana maaha meel dhexaa jirta wasat
ilmaha control waa inuu jiraa ya xataa waad aragteeno waxay samaynayaan in computerada iyo marka la iibinayo waxaa la samaynayaa yani parents control baa jira waxbaa jira maxaa ku jira meel publica inaad dhigto baa jira halkaas computerka qof walba ha isticmaalo saacad mucayana ha isticmaalo maaragtay halkaas sitting roomka ha olaado qof walbaana qolkiisa ha seexdo ma jirto maxaa dhacay bahalahan yaryar oo kulli la wada sito wuxuu ku samaynayaa cunuga maalin walbo maarag wato waxyaalahaasoo dhan waa in control leedahay waa inay leedahay limit waa inay leedahay waa inay xuduud leedahay bedelkeedana waa in loo sameeya oo waqtigiisa lagu buuxiya bedelkeeda waa in wax faa'iido leh lagu buuxiya waxaa ka mid ah yani dhibaatooyinka inxiraafka keenaya ilmahaas yani saan sheegnay lagu sii daynayo waxaa fitantahay aan aragno oo filimadii internetkii social networkigii maxaan kuu sheegay isticmaalkoodii mobiladii lagu sii daynay waxaa kaloo ka mid ah ilmihii inaanu helahayn gurigii wax ku kaalmaya homeworkii waxyaalihii waalidiintii waxay isaga badan yihiin dad maaragtay aqoontoodii hooseyso dad aan educated ahayn dad aan garan karin ilmihii waxa ayba musaacado u baahan yihiin ilmihii marka dhinacaas laftigeeda dhibaato inay ka wajahdo waa in xal loo helaa tuitionkiisa waqtigiisa meeshay noqonayso qaabkay noqonayso haddaanu isagu waalidkii qaban karin marka uu tuitionkaas samaynayana la joog la soco maaragtay rafiiq u ahow xaaladiisa wax ka ogow oo ilmaha maaragtay waa inaad madrasadii islaamiga ahayd oo haddana aan jirin saan sheegnay bay-adiyo maaragtay daban kulligood waa caqabaad waalidiinta thaqaafadooda yaraantooda waa caqabaad inahaasoo dhan waxay ka mid yihiin walaalayaal dhibaatooyinka ilmaheenna ku furan oo haddii aynan xal uga dhaqaaqin aan wax la helihayn insha allahu tacaala waxaan jeclahay habeen dambe inaan muxaadarada aan bal ku bayaaniyo insha allahu tacaala bal waxa xuluusha noqon kara iyo qaababka tarbiyada noqonayso aan uga bixi karno qodobada shanta oo aan sheegayna wixii camaliyan ka suurtagal ah oo practical ah inaynu isla eegno نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.